ثمامة بن أسال يراهدو صحابي قاسي وحو أها بقر هذه عربيات كتير صن مركي جاهلية وحو أها سيد يدا قبيل كرهبن وحنيفة كمد أيو أها وحو أها نن إنها لغو هيو جاهلية أما فرها لغو تلمامو وحو أها بقر أن هذا الكوي هذا الذي ذكر جرين وحل في جاهلية أيو نن كان تلمامها كتلمانا إيا مركي أونا إسلامين أيو تلماميه سنعا أي أهايين نكان ثمامة اللي يراهدو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة ديسي أيو جاس إيا يصد إيا يرئيسي أيو كالهورتبي وحيسكو دا نكان هذا سحابي قان نقضي انتو نسحابي قان نقنين إن كبيركي إيا إسلوينيدو أيو كو حنبارتو إنه نبي محمد دعودي سبختي إسيرا رسول كان هوس أدل إنه إسيرا هذا أيو آبس كودي وحدها كفر يستي وحندها كقرصدي إنه نبي محمد دعودي سمقله أما دقيستو شيطان كيسي أيا كبير رجاليي إنه نبي محمد دلو دعودنا نلاشكو آسو وحوسي عاداء وننكني عاديستي inuu jaanisiyo la sugo nabi maxamed jaanisiyo iyo furas buu la sugayay si uu rasuulka uga takhaluso maalin maalmaha kamida ayuu si gaadma ah nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam ayuu jaanis uga helay waxay sigtay shirqoolkii uu maleegayay inuu dhamaystirmo nabi maxamedna uu halka ku dilo ayuu aad iyo aad u sigay laakiin ninkan Sumaama adeeradii mid kamida ayaa ka celiyay ilbiriqsigii ugu darbeeyay ee dilka uu fulin lahaa ayuu ka celiyay isku daygii uu sameeyay Sumaama adeerkii ayaa ka celiyay ilaahayna arrinkaa wuxuu ku badbaadiyay nabi maxamed ayuu ninkan sharkiisii ilaahay kaga badbaadiyay halkaa ninkan saxaabiga noqday ee Sumaama la yiraahdaa wuxuu ku guuleystay rag badan oo saxaabada nabi maxamed ah inuu si hoose u helo oo walibana uu laayo sida ugu xun ayuu u laayay waa saxaabadii nabi maxamed ayuu sidii ugu xumayd ee wax loo dilayay ayuu u laayay wuxuu isku day jiray xilliga reer Madiina beeroqoto ay ahaayeen timirta ay habeenkii ilaalin jireen ka timirta waraabinaya ama ka beerta u hurda bu habeenkii intuu soo guuro dil jiray yaa loo raacaya saxaabada nabi maxamed ragii habeenada ama guryaha yar deganaa ama beeraha qodanayay waxba kama sii deeynin rag badan oo kamida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka war helay ninkaasi rag badan oo saxaabada ah inuu dilay dhiigiisii ayuu rasuulku bilaash ka dhigay wuxuu iclaamiyay oo saxaabadiisii ka dhex iclaamiyay ninka dila inaan waxba looga qabsanaynin labada in ajri iyo abaal ilaahay agtiisa uu kaga helayo waqti dheeriba isagoo ka soo wareegin iclaankii rasuulka ayuu ninkani go'aansaday hadama islaamin waa Sumaama wuxuu go'aansaday inuu umraysto wuxuu ka yimid dhulkii reer Yamaama isagoo Maka u soo qastaya naftiisana ugu sheekaynaya Kacbada barakaysan inuu soo dawaafi doono sanamiyadeedana inuu xoolo u soo gowrici doono Sumaama isagoo jidkiisii ku soo jira Madiina uu ku jidkii isagoo ku soo jira مدينة ميل مدينة أدو مدينة ميل أدو أي مصيبة كل عضي قلبي قبل أن مرنا مكان سومرين وحنا ملكم ملايسا أما أنا كفكرين أي جد مدينة أكتدا إسقى مريا أي نيكي كل عضي مصيبة كل عضي مصيبة السنة وحي نقطي رد صحابة النبي محمد كثيرا والرسولك إلى الله أدري يجرب العيدة مدي مكائية إني مالها مريان يجددك قالنا هاي صحابة هو سودي لي عيدة مر رسولك أدري ومالها جددك فرديا وعد شرقول سمين يسر رادين يسا بافك وقصوا قال لمن كان أيها قبطي عيدة كي النبي محمد وسيدا أدح وريغي دارها إيا ودوين كي مدينة أدواء أردن أيها قبطي ciidankii markay qabteen ma garanayaan ninkan inuu yahay ninkii saxaabada laayay ma garanayaan inuu yahay ninkii boqorka ahaa ee Sumaama la oran jiray ma garanayaan inuu yahay ninkii nabi maxamed
ويري ديكيسو waa bilaash ninka dhiigiisa daadiyo waa bilaash waxba looma qabsado laakiin mayna siidaynin intay soo xirxideen ayay Madiina keeneen markaas ay masaajidka tiirashiisa tiir kamida ayaa lagu xidhay garbaduub ayaa loogu xidhay isagoo tiirkii ku xidhan nabi maxamed amarkiisa uu ninkan ka bixiyana la sugayo calayhi salaatu wasalaam markuu ogaado rasuulku wuxuu ninkan yiraahdo isagoo la sugayo ayuu nabigu u soo baxay xagga masaajidka wuxuu isku dayay inuu masaajidka soo galo waa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay boqorkii carbeed ee Sumaame ee rasuulka ku ballan qaaday inuu dilayo ee adeerkii uu ka celiyay laakiin saxaabo badan oo saxaabada nabiga ah ku guuleystay ee dilay ninkii wuxuu arkay tiir garbaduub ugu xidhan rasuulku waxa kale uu dareemay waa loo sheegi lahaaye inayna saxaabada nabi maxamed ninkan garanaynin ay iska soo xidheen oo ayna garanaynin wuxuu yahay ayuu nabigu dareemay markaasuu rasuulku saxaabada la hadlay wuxuu ku yiri atadruuna man akhadtu war ninkan aad soo qabateen miyaad garanaysiin buu yiri waxay yiraahdeen la ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisa iyo ninka waanu qabanay xilli xun buu socday kelidii buu ahaa nin saxaabadii nabiga ka tirsan inuu yahay uu nala noqon waayay tee ka shaki un baanu u qabanay dambi ninkan lagu hayo oo nu u qabanayna ma jirto bay yiraahdeen wuxuu rasuulku yiri hada Sumaama ibn Uthal al-Hanafi waa ninkii Sumaama la oran jiray ee saxaabada dhiigooga daadiyay ee reer Hanafi fa ahsinu atharahu war habsigiisa iyo muaamaladiisa wanaajiya si wanaagsan ninkan ula dhaqma ninkani waa ninkii saxaabada nabi maxamed laayay ee rasuulka ballan la galay inuu dilayo hadana nabigu isagoo u xidhan kama aarsanayo inuu ka aarsado ma rabo waayo dacwada waxa lagu gaarsiiyaa ummadda xilmi iyo wanaag iyo sharaf ayaa lagu gaarsiiyaa waxa aad xambaarsan tahay waa inuu adiga ka muuqdo hadduu adiga ka muuqan waayo laakiin ogow inayna waxaan diinahayn diin meeshan kuma jirto adiga hadduu waxaan ka muuqan waayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu u tagay xaasaskiisii buu dib ugu laabtay markuu tukaday wuxuu yiri waxa aad haysiinay cunto dumarow ee soo ururiya una soo diray buu yiri ninkii Sumaame la oran jiray ayuu u geynay Sumaame ha loo geeyo buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam hal buu lahaa irmaan hashkiisi ayuu yiri aroor gelin hore iyo gelin dambaba hal soo liso waxana loo geynayaa caanaheega ninkii saxaabada nabi maxamed laayay rasuulkana go'aansaday inuu dilo ayaa loo geynayaa arrinkaas oo dhani wuxuu dhacay oo nabigu uu hashiisii kaliya ahayd ee reeraha u irmaanay caanaheega uu siinayay oo rasuulku cuntada xaasaskiisa yaal guriyihiisa yaala uu ka qaadayo ninkan u geynayay isagoo ninkan la hadal isagoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu xataa cid hadda dilay iyo inuu cid dilin iyo wuxuu u socdaba isagoo rasuulku kala weydiin ayuu rasuulku amarka saxaabadiisa ku bixiyay markaas ninka sida loo wanaajiyay hatta hadad qof dilayso lama ogola inaad mididaad ku dilayso ugu feedhadee diinteena meel kuma leh wayna qof hada dilayso si wanaagsan loo dilo oo dambide lagu dilayo hadduu muto si wanaagsan loo dilo weey hadii kale waa in sharaftiisii la ilaaliyo oo sharaftiisii la dhowraa oo la maamuusa oo dacwadaada aad ugu gudataa akhlaaqdaada iyo diintaada waxay ku amrayso intaas markay dhacday ayuu rasuulku soo qaabilay ninkii Sumaama la oran jiray isagoo doonaya inuu ninkani islaamo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu rasuulku ku yiri ma indaka ya Sumaama warbali waran Sumaama maxaad haysaa wuxuu cindi ya Muhammad khayr محمد ودي خير بان هيا ابو يري فين تقتل hadii aad idisho taqtul daadami nin bi ka galay oo raka laayay ayaa dishay nin bi ka galay oo raka laayay ayaa dishay eed kuma liid hadaad idisho laakiin rag ban ka laayay ogow wa intuncim hadaad nimcayso oo iska kay cafido tuncim ala shakirin ninkuu mahadnaqaya ayaad u nimcaysay oo cafiday wa in kunta turiidu al-maala hadaad maal iyo hanti doonayso فسل السؤال تعد منه وحا لغو سيني ماشيتا وحي أفكار سومرسطو نبيقو كليه
saddexdaa option baras uu ku hor yaalin buu leeyahay haddaad disho nin dhiig ka galay ayaa dishay oo fiirsada halka wadaada macnaynaya ayaa ku macneeya haddaad disho nin dhiig le ayaa dishay war nin dhiig le ma aha waa nin dhiig ka galo raka qaba nin raka qaba ayaa dishay weeyii haddaad disho nin raka dilay ayaa dishay buu yiri waa koow haddaad bilaash ba igu sii dayso iska tagay tiraahdana ninkoo mahadnaqi doonay intuu nool yahay ayaan ahay oo abaalka ma ilaawayo buu yiri haddaad hanti doonaysana dee boqor baan ahay boqoradii carbeed waxa la waxaad afka soo marsatay waad iga heli kartaa buu yiri saddexdaa midii soo gal nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam wuu iskaga tagay laba maalmood ayuu rasuulku ka maqnaa kiyo sumaame hashi rasuulka halkii loogu lisayo guriyihiisa cuntadii yaalayna bartii loogu keenayo cid garaacaysa iyo cid u hanjabaysa iyo cid oranaysa saxaabu laayay iyo cid oranaysa nabi maxamed iyo dilu isku dayay iyo waxa soo dhaniba ayna jirin oo bartii admoodo in lagu maamuusayaba dhargaya gelin horiye gelin dambaba laba maalmood buu nabi maxamed ka maqnaa sallallahu alayhi wasallam laba maalmood markuu rasuulku ka maqnaa ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu hadana u yimid markaasuu ku yiri ma indaka ya sumaama war sumaama bal waran maxaad haysaa hadda wuxuu ku yiri ma hayo intii marka hore aan kuu sheegay mooyaane haddaad ii sii dayso ninkuu mahadnaqayo abaalka ku og ayaad sii daysay haddaad dishana nin dhiig ka galay ayaad dishay haddaad hanti iyo maal rabtana afkuunu kala qaad wax alla waxaad i weydiiso waad iga heliyeen intaasun baan anigu hayaa buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu iskaga tagay lama hadlin maalintii dambe markii ay timid ayuu nabigu u yimid markaasuu weli sidii baa hashi rasuulka loogu lisaya markaasuu rasuulku yiri ma indaka ya sumaama war sumaama maxaad haysaa bal waran sumaama wuxuu yiri intii markii hore aan kugu idhi baan hayaa wax kaloon hayaa ma jirto nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii ayuu sii eegay uu jeedsaday wuxuu ku yiri adliqu sumaama war iska sii daaya buu ninka sumaama iska sii daaya wuu arkaya rasuulku inuu ka awood badan yahay wuu arkaya ninkani inuu u xidxidan yahay wuu arkaya ninkani inuu saxaabadii nabi maxamed rag badan ka laayay wuu arkaya inuu isku dayay dacwada inuu baqtiyo ama uu aaso wuu arkaya inuu nabi maxamed oo khayru khalqillaahi inuu dilo inuu isku dayay oo adeerkii ilaahay u bixiyay adeerkii ayaa rasuulka ka qabtay waa gardarooyin iska cad oo geedna aan loogu soo gaban oo wax alla wax hadana sabab nabi maxamed lagu maagin yahay ayna jirin illa dacwadiisa iyo diinta mooyaane wax kale oo sabab u ah oo arrinka lagu tilmaami karaa ma jiro oo diinta iyo dacwada ahayn warku markuu halka marayo ayuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iska sii daayay afisku wuxuu qiimo leeyahay cid ka adag tahay marka cafido cid adan ka adkayn hadaad cafido laga yaabaa awoodi inay halka ku dhigtay ayaa dhici karta laakiin cid ka adag tahay oo arkaysa inaad ka adag tahay markaad cafido markaas horta afisku wanaagsan yahay iska sii daayay buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam fumaama isagoo yaaban isagoo qaadan waa ay tahay isagoo og in la og yahay ragii saxaabada laayay inuu yahay waa la og yahay hadda wuu yaabay laakiin wuu isla hadlaya mar wuxuu la yaabay yahay muaamalada wanaagsan ee rasuulka mar wuxuu la yaabay yahay nin rag ka laayay sida ay hadana u soo dhaweeyeen mar wuxuu ka yaabay yahay sidaan hantiba looga codsan ee iska dhaqaaqun loo yiri fumaama isagoo yaaban oo xakihii iyo wixii oo dhan laga furfuray ayuu masaajidka ka baxay oo barta ka baxay waa fumaama markuu tagay uu fogaaday xaafadihii madiina meel ka baxsan baqiic meel ku dhow markuu gaaray waa biyo ayuu gaadiidkiisii uu watay ayuu fariisiiyay biyihii ayuu ku baydhay oo uu ku maydhay si fiican ayuu ugu dahaaro qaatay wadadii uu nabi maxamed kaga yimid ayuu dib uga laabtay masaajidkii rasuulka ayuu fumaama dib ugu noqday markuu soo gaaray ayuu istaagay rag aad u tiro badan oo saxaabadii nabi maxamed oo halkii fadhiya ayuu iska dul taagay oo ka dul qayliyay
وحول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحن كمر خاتك عيابو يري إله حق لبو عابدا إنو نجر الله موياني وحكالون كمر خاتك عيابو يري نبي محمد أدونك إلهي يا رسولك رب العالمين إنو يهي أيان كمر خاتك عيابو يري نبي محمد أي أجيت سبي رسولك أي أتري وحول يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك إلهي بان كل أرتي دولك كركي سمجوغن قفن كان نعبها يوجي وجهك وجه أن كان نعبها دولك كركي سمجوغن رسولك كليه صلى الله عليه وسلم وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ما أنت دولك كركي سمجوغن وجهك وجه أن كان نعبها سدا أي كل واقع منك ووالله بان كل أرتي ما كان دين أبغض إلي من دينك مجرين دينك هذا النبي محمد ودين أن كان نعبا فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ما أنت لدين تهذي وحي نقطي دينها دين تعال أقول على هاي ووالله بان كل دار كيبو يري ما كان بلد أبغض إلي من بلدك مقال هذا أن كان نعبها مجرين بو يري فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ما أنت مقال هذا مقالويك مقال هذا أقول على هاي أي نقطي شيء كذي أيسي وذي وحيري لقد كنت أصبت في أصحابك دما صحابة هذا النبي محمد وركب ما كان لاي أوديك ما كان دادي فما الذي توجبه علي محائه واجبا ديجي أنك قبل حكرا أما دوش إذا حق اللي يقول لي يا مسلمين تقول لي هي ديجا أن دادي إيش يقول حاجة اللي بتقول النبي يقول لا تطريب عليك يا ثمامة أنا ندوش على معها فإن الإسلام يجب ما قبله إسلام وحي قويا أما ميرا وحي كهريي أردن صحابة النبي صحابة إذا مركز لينيسي قال بعض حيبو رسولك كيولي ما أنت نوات صو إسلام وحي إسلام لماذا كهريي أردن ولا قادادي وحي دوني هذا الدين بكم ليه والله وحي إسلام لماذا كهريي لما نيو إسدلي أيات شنده وذا قليا بل إلهي علمي يدي سكا ورما حيث إلهي كبري كرجينينا إلى كميديين حمسي أو رسولك أديركيا إيا منكي وحشي الأورنجري إيه حمسي دي لي إلا نساقو قال أيو حمسي دي لي كدي منه وصاء إسلام يواكي دي لي منكي الأورنجري مسيلمة الكذاب والله من ويس دينين هذا إن شاء الله ومن أهل الجنة بإذن الله تعالى ويا صحابة دي نبيك نكر ديلك وحسمي إساقو قال كدي منه وصاء إسلامي كل وصاء إسلامي إسلام نمدي سيبا وناك سناتي صحابة دي نبي محمد يحرق عهيد بك صابيري ثمامة رسولك وحكي لا تطريب عليك يا ثمامة فإن الإسلام يجب ما قبله إسلامك وحي كهريي أردن وميرا وحور ورائي وحمرقئي نتشعر عنه رسولك وأبشاري ثمامة وأبشاري خيرك إلهي وأقري إسلام لماذا سدرتي وأقري وجهي ثمامة يا صداع فرحي أوكل بطبطي وحري والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك ولا أضعن نفسي وصيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك إلهي بان كل أرتيب ورقالة وحن كالله ينطونا مسلمين انت كان لا ثمامة ابن أصال يراهدو صحابي قاسي وحو أها بقر هذه عربات كتير صن مركي جاهلية وحو أها سيد يدا قبيل كرهبن وحنيفة كمد أيو أها wuxuu ahaa nin indhaha lagu hayo jaahiliga ama faraha lagu tilmaamo wuxuu ahaa boqor aan hadalku yiraahdo la diidi kari jirin waa xilligii jaahiliga ayuu ninkaani tilmaamaha ku tilmaanaa iyo markii uuna islaamin ayuu tilmaamihiisu nooca ay ahaayeen ninkan sumaama la yiraahdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dacwadiisi ayuu jees iyo yasid iyo yaraysi ayuu kala hortagay